Ilhaan Cumar iyo 16 xubnood oo kale oo ka tirsan Koongareeska Mareykanka ayaa la xiray xilli ay maxkamadda sare ee Mareykanka ee Washington ka hordhigayeen dibadbax lagu taageerayay xuquuqda ay haweenka u leeyihiin inay ilmaha iska soo ridaan. Booliska Capitol ayaa qoraal ay soo dhigeen Twitter-ka ku sheegay in dibadbaxayaasha ay xanibeen isu socodka baabuurta ee waddo ku dhow maxkamadda sare, isla markaana la siiyay 3 digniin ka hor intaan la xirin. Waxaan sameynay 35 xiritaan oo la xiriirta isu soo bax, xanibaad ama arbushaad ayay booliska ku yiraahdeen qoraalkooda. Tiradaasi waxaa ku jira 17 xubnood oo ka tirsan Koongareeska. Dibadbaxa ayaa yimi 3 toddobaad kadib markii maxkamadda sare ay gaartay go'aan lagu baabi'iyay xukunkii 1973 ee taariikhiga ahaa, kaasi oo haweenka u damaanad qaadayay inay ilmaha iska soo ridi karaan. Maanta waxaa la xiray aniga iyo saaxiibadeeda kale ee Koongareeska kala qayb qaadanaya gadood shacab oo aan ka hor dhignay maxkamadda sare, ayay Ilhaan Cumar oo laga soo doorto Minnesota ku tiri qoraal ay soo dhigtay Twitter-ka. Waxaan sii wadi doonaa wax kasta oo awoodeeda ah si aan u kiciyo dareenka ku aadan weerarka lagu hayo xuquuqda taranka, ayay Ilhaan tiri. Xildhibaan Carol Malone oo laga soo doorto New York oo sidoo kale la xiray ayaa soo saartay bayaan ay ku tiri ma jirto dimuqraadiyad haddii haweenka aysan maamuli karin jirkooda iyo go'aanada ku saabsan caafimaadkooda oo ay ku jirto daryeelka taranka. Xisbiga Jamhuuriga iyo xagjiriinta garabka midig ee ka dambeeya go'aankan ma ahan kuwa taageera nolosha, balse waa kuwa taageera in la maamulo haweenka jirkooda, gabdhaha iyo qof kasta oo uur yeesha. Muuqaalo laga soo duubay dibadbaxa ayaa sidoo kale muujiyay xildhibaan Ilhaan Cumar iyo xildhibaan Alexandra Ocasio-Cortez oo la sii wado balse aan la jeebayn. Ilhaan Cumar iyo xildhibaanada kale ayaa markii dambe la sii daayay sida wararku ay sheegayaan. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.